wasiirka hore wasaaradda caafimaadka ee Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo maanta wareejiyay xilkii wasaaradda caafimaadka ayaa gaashaanka u daruuray warar isaga ka dhana oo warbaahinta lagu baahiyay maalmihii la soo dhaafay kadib markii ciidamada booliska gobolka Togdheer ay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen laba gaari oo la sheegay inay lahayd wasaaradda caafimaadka oo ciidamada booliska ay uga shakiyeen in lala baxsanayo sida hadalka ay u dhigeen ha yeeshee wasiir Xagle Toosiye ayaa gabiyahaanba arrintaasi beeniyay oo meesha ka saaray waxaan aad uga naxay oo la yaabo ninka yiri uu baxsaday ama uu baxsanay kuma qabato runtii baabuur anigu aan mid leeyahay midna wasaaraddu leedahay oo anoo wasiira amarkayga ku baxay ayaa inta burco lagu qabtay way baxsanayeen ma aha wax cusub allah u naxariistay qaybe oo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa gaadho u leeyahay diray qorlugud baa lagu qabtay waxa la yidhi xadku ka baxay oo la baxsanay ayuu u hadlo wuxuu yidhi waa xadka Soomaaliland ma qorlugud baa أنا ما أنت وحلايا ورحت السومال المبرعة يا أمر ما يمدحون المصابي إنه أرنكا وحكوجيا ساس أمر لكن وحامدين شيء أريجا دولة السومال أنت عبدنا بيجتر حس يا سيد بعمري